filimka waxa uu bilaabanayaa 1962 halkaas oo ay qoorta iskugu jiraan midowga Sofiyeed iyo Mareykanka. waxaana jira warar sheegaya in Sofiyeedka uu doonayo in uu nuclear ku weeraro Mareykanka, taas oo muwaadiniin badan ku kalifayso in ay dhufeysyo dhulka hoostiisa ka qotaan. dadaal dheer kadib, Dr. Weber wuxuu ku guuleystay inuu dhisto dhufeys gurigiisa ku hoos yaalo, kaasi oo leh wax walba oo ku filan muddo 31 sano. maalin maalmaha ka mid ah, dhufeyskii ayaa wuxuu ugu yeeray saaxiibadiis ay ku caawinayaan. waxay maqleen TV-ga madaxweynaha Kennedy waxa uu sheegay macquultinimada inuu Sofiyeedka nuclear ku soo weeraro. durbadiiba Weber waa uu kala diray dadkii, waxa uu bilaabay inuu dhufeyskiisa galo asaga iyo xaaskiisa oo ayadana Helen lagu magacaabo. Helen waa mid uur leh. durbadiiba diyaarad magaalada ku dhex duuleyso ayaa qalqal soo wajahay, waxaana dhacday inay ku kor dhacdo gurigii Weber. durbadiiba Dr. Weber waxa uu shiri waa uu bilowday weerarkii nuclear-ka ahaa. albaabkiina si automatic ayuu isku xiray. xaaskiisana waxa uu sheegay inuu albaabku furmi doono 31 sano kadib, markaas oo uu shucaaca adduunka ka yaraado. diyaaradii markii ku burburtay, askartii iyo booliskii ay yimaadeen guriga, waxayna fishadeen in ay dhinteen Weber iyo Helen. Dr. Weber iyo xaaskiisa waxay bilaaween inay la qabsadaan nolosha dhufeyska, laakiin Helen waa mid aanan ku qanacsanayn maadaama ay uur leedahay. maalin maalmaha ka mid ah, fooshi ayaa qabatay, waxa ayna dhashay wiil, taasi oo farxad gelisay qoyskii. waxayna ugu magac dareen Adam. waqti marka la joogaba, Dr. Weber wuxuu bilaabay inuu inankiisa guriga wax ku baro, isagoo barayo taariikhda Mareykanka. muuqaalka xigo waa 1965 halkaas oo koox ganacsato ah ay bilaabeen inay ka kordhisaan maqaaxi yar. 10 sano kadib, inankii Adam ahaa waa uu weynaaday. Dr. Weber wuxuu bilaabay inuu inankiisa wax ka baro ganacsiga iyo luqadaha sida Faransiiska iyo Laatiinka. waxa uuna ka yaabay maskaxda furan ee inankiisa Adam. muuqaalka xigo waxaynu arkaynaa 1995 halkaas oo ay u dabaaldegayaan qoyska inankooda Adam dhalashadiisa 30aad. muuqaalka xigo waa 1977 halkaas oo uu dhufeyskiisa gaaray xilligiisa dhamaadka ah. waxa uuna bilaabay inuu biyo soo daayo, waxa uuna bilaabay inuu isfuro. Dr. Weber ayaa iridda aaday si uu u soo eego banaanka. dhanka sare ee dhufeyska waxa uu noqday meel ay ku caawiyaan dadka darbijiifta ah. durbadiiba darbijiifta waxay ku soo baraarugeen dhulkiyo gariirayo, waxayna arkeen Dr. Weber oo banaanka ku soo baxay asagoo wato dharka looga hortago shucaaca. Dr. Weber ayaa u baxay banaanka, halkaas oo uu arkay inuu isbedelay guryihii uu degnaa. durbadiiba Dr. Weber waa uu ku soo laabtay dhufeyskii, waxa uuna qoyskiisa u sheegay inay ku sii noolaan doonaan dhufeyska, laakiin xaaskiisa ayaa ka diiday. siday u doodayeen, Dr. Weber wadna xanuun ayaa qabtay, waxaana dhacday inuu dhul ku dhaco. Helen ayaa inankeeda ka codsatay inuu suuqa aado u soo iibiyana adeegyada asaasiga ah. durbadiiba Adam banaanka ayuu soo baxay. markii ugu horeysay, Adam waxa uu arkay qoraxda, waxa uuna bilaabay inuu gacanta u taago dadkii wadooyinka marayeen. waxa uuna la yaabay markuu arkay naag midabkeeda uu madow yahay. isagoo tukaanka iibsanayo, wuxuu arkay gabar lagu magacaabo Eve. marka uu banaanka u soo baxay, wuxuu bilaabay inuu durbadiiba la sheekaysto Eve. waxa uuna ka codsaday inay u wado maqaaxida ay ku caawiyaan dadka darbijiifta ah, laakiin waa ay ka diiday. laakiin markuu Adam u ballan qaaday inuu lacag siin doono, waa ay ka ogolaatay. durbadiiba marka uu soo gaaray maqaaxidii dadka darbijiifta ah, waxay la bilaabeen inay la dejiyaan alaabta si u geeyo dhufeyska. Adam waxa uu Eve u geeyay qoyskiisa, waa ayna ku farxeen inuu xaas helay. durbadiiba Adam iyo Eve waxay bilaabeen inay iibsadaan hantidooda maguurtada ahayd, waxayna ay ku gateen baabuur iyo guri ay wada degaan. maalintii xigtay, Adam waxa uu aabihiis iyo hooyadiis u waday dhankaas iyo gurigooda. Adam waxa uu aabihiis u sheegay in uusan dhicin weerar nuclear ah, laakiin ay diyaarad ku kor dhacday gurigooda. waxa uu sidoo kale u sheegay in midowgii Sofiyeed uu burburay asagoo aanan dagaal dhicin. muuqaalkana meeshaas ayuu ku egyahay daawade.